ciidamada bilayska ee degmada Togwajal ayaa gacanta ku soo dhigay xashiisha tiro badan oo si qarsoodi loo soo gelinayay gudaha Soomaaliland waxaana xashiishada lagu soo qabtay gaadiidka yaryar ee ka dhex shaqeeya magaalada ganacsiyeedka degmadaasi Togwajal ee loo yaqaan bajaajta haddaba waxa ka warbixiyay howlgalkan lagu soo qabtay xashiishada iyo tirada ay dhantahay taliyaha ciidanka bilayska ee degmada Togwajal gaashaan la dhexe Maxamed Case xeerlaaliyaha maxkamadda gobol degmada Gabiley waaxda Wajal Yaxya Waadan iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Togwajal Mursal Nuux Ismaan iyagoo fariin adag u diray cid kasta oo isku dayda inay mukhaadaraad noocan oo kale ay soo geliso dalka mas'uuliyiinta halkaasi ka hadlayna waxa kamid ah hadaladoodii kuwaasaan ku hayna 3 qof oo gabadhna gurigeeda laga soo qaaday iyo bajaajtii siday kuwaasoo aan ku hayna 19 kilo xashishada 19 xidhmo oo xashiishada waxa weeye xashiishadaas muddo dheer baan daba soconay waana xashiishada afraad aan qabanno sanadkii hore iyo sanadkan gudihiisa waa xashiishada afraad aan qabanno waxa weeye xashiishadaas sida loo sheegayo in badan baan la dhaaftay waxa weeye aad iyo aad baan imka ula dagaalamayna waxay bedeshay khamrigii iyo maandooriyihii kala dhan waxa soo bedeshay xashiishada imka khamrigu uu ku yar yahay markaad eegto dhaqdhaqaaqiis aad uu ugu yar yahay litir iyo 2 iyo 3 qof sita iyo qof waxoogaa sita imka wiigan gudihiisa isagana mid 15 soddon xabo yaryar oo khamriga sitay ninkaasna waanu qaban waxa weeye markaa aad baan ula dagaalamayna laakiin wadan dhan oo aan de waxba xaraan ka ahayn baa naga xiga xagan naga shaqeys banaankii baa la marayaa baabuurtii baa la raacayaa baabuurta waa laga sii horeynayaa waa la sii lugaynayaa waxa weeye markaa xashadaas aanu qabanay sharcigaanu marin doonaa 3 qof aanu ku qabanay waxa weeye Cabdirasaaq Ibrahim Cabdi iyo Cabdiqadar Maxamed Ibrahim iyo Sams Umar Ali xashiishad lagu qabtay 3 eedaysane kuwaasoo kala soo talaabay daanta Itoobiya una soo galiyay wadanka ayna ku guuleysteen ciidanka booliiska Wajal inay gacanta ku dhigaan waxaan dadweynaha u sheegaynaa khamrigii inay bedeshay bahashaas xashiishada khamrigii imika waa yar yahay oo adiga arkaya farsamooyinka iyo noocyada nooca loo soo habeeyay waad arkaysaan marka waxaan leenahay cid kasta oo aragta waxyaabahan noocan oo kale sidan oo kale loo duubay inaad la soo socotiisaan booliiska si ay uga howlgalaan una soo qabtaan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ciidanka booliiska degmada Wajal oo si adag uga howlgalay soo qabashadeeda baashan xashada oo aqoon badan loo lahayn horteena yaala 19 kiilo oo xashiishada oo la doonayay in nabadgelyada lagu khalkhalgeliyo loona waarido xagga caasimada waxaan fariin u dirayaa shacbi weynaha degan degmada Wajal inay la shaqeeyaan waxa weeye ciidanka bilayska waxaan u mahad celinayaa ugu horeyn ciidanka bilayska ugu horeeya taliyaha saldhigga iyo ciidankiisa aad iyo aad baan ruuxaantii ugu mahad celinaynaa si ay ula dagaalamayaan waxyaalaha mukhaadaraadka kuwa ay ka tahay xashiishada khamriga intaba waxa la doonayaa in nabadgelyada lagu khalkhalgeliyo sida uu sheegay gaadiidka lagu soo qaaday waa gaadiidkii ugu yaraa waxa weeye waa bajaajka waxa weeye kolba gaadiidka muxuu ahaa ka sii yar yahay ayaa la doonayaa in la adeegsado fariina waxaan u diranaa haddaanu nahay maamulkii Wajal hadday tahay bajaajyada hadday tahay gaali ximaarada kaariyoonayaasha intaba waxa weeye waa la adeegsan karaa waxa weeye eedaysanu amba dambiiluhu noocu doonaha ahaado mar alla marka waxa weeye ciidanku waxa weeye hawshooda way ku jiraan habeen iyo maalin waxa weeyeen heegan bay ugu jiraan nabadgelyada iyo ciddii nabadgelyada doonaysa inay khalkhaliso ee waxyaalaha mukhaadaraadka sida say gacanta ugu soo dhigi lahaayeen Khadar Cabdillaahi telefishinka caalamiga ee Somali News TV magaala ganacsiyeedka degmada Togwajal